Somaliland jabhad humaysan uma baahna waana cambaaraynayna in Somaliland ka abuurmaan jabhadaha humaysan sidoo kale waxaanu cambaaraynayaa waliba si adag u cambaaraynayaa in Somaliland uu ka abuurmo xukunka kaliis taariikhdu waxay baraysaa in jabhadaha humaysan ay dhalaan dictatoradu iyo kaliis Somaliland waxaad moodaa haddaan Ilaahay u bixin inay qaaday wadadii kaliisnimada Muusana waxaan leeyahay haddii aad dariiqa qaado Somaliland oo dulqaadkii aad doqonnimo u taqaano in Somaliland gacantaada ku burburi karto waxa uu yiri xunta anaga diidan haddaan u daranahay lagu dari maayo ama xubnaha haddii lagu darana doorashada geli mayno waxa daba socoto lagu eedeeyay madaxweynuhu talada mararsadaa waa kaliitan istara ma ogola bal amuurta ilaahay Abdirrahmaan adoo gudoomiye baarlamaanka ugu weynaa saxaxada ee dalka 10 sano sharciga u saxeexay adoo gudoomiyaha xisbiga wadaniga qaran ah adoo xildhibaan guurto sharafeed oo milkiye maamus ku leh te bal arinta ka fiirtay yeeri maayo baarlamaanku waa arin adag war baridina ka garan qashib weynu anagu baarlamaanku wuxuu waa ogol haduu kaaga soo celiyo waa ogol labada qodob garta ayaan cadeynayay oo midii hadda ka cadeynayay wixii ka soo noqdana waxa uu dadka ka hor sheegay shalay inuu jiro xeer anagu saxay oo lagu soo xulayay komishanka doorashooyinka qaranka xeerkii lagu aasaasay oo xeerka kaliya inuu leenahay nambarkiisana la ilaalin badan baa maqasheen xeerkaas soo cidi ay tix raacayso waxa la ilaa xeerka number 20 ama xeerka 20aad 2001 xeerkaasi wuxuu soo baxay xilligii baarlamaankii hore jiray baarlamaanka horeeyay waxaana saxeexay 8 December 2001 marxuum madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal cabdiraxmaan irama saxiixin nuqulna waan hayaa hadda waana idin soo bandhigi doonaa mar dhow hadii la ka dhigo 18 sano ka hor bay ahayd hadii loo dooyay xukuumaddu haduu qaadato dadka hal waaniyo gacan qabo lagu maamulo laakiin dulqaadka iyo doqonnimadu waa waraado laba kala saari karo waxay la tahay waxay gaadhay dulqaadka inta qaranku dhaafay markii doqonnimadu ku jiro oo maalinba qaranka uu meed soo waraaqsanayo oo ay tahay ninka waa lagu ooyaa waxay la tahay taasi inay dee soo afjarmayso aqal ka badan la keeno dhibiraanta ciidamada qaranka loo leeyahay maamuuskaas iyo xikmadaas ay ka dhamaatay madaxtooyadii Somaliland madaxweynaha hadalkiisii ugu dambeeyay waxa kamid ah in dulqaadka iyo doqonnimadu ay walaalihiin waxay la tahay ereygaas muwaadin kastoo reer Somaliland dhigiisa ugu dhib waxaan halkan ka sheegi doonaa tixyaro gabay aan ka soo qaatay gabaygii hadraawi suudan loo oran jiray tixdaa iyo khudbadii madaxweynaha way isugu ka ekaadeen bal idinkuna way leeyahay inay isu eegyihiin waxa kamid ah marka uu la hadlayay Philippines in xukumi jiray oo Marcos loo oran jiray iyo gabadh madaxweynenimada ku haysatay samarkii iyo dulqaadkii iyo naxariista badan bay dadku igu ogaadeen naftaa sugaysaan ma awoodahaygay yamyam iyo qadaad weyn xataa caanaleydii boocugu tukubaya markaan dhiiran waayaa laysii qodqodaya
doofaarka ficilii naar loogu daayimi kol haddii dubbe iyo waran duunkayga lala dhacay yaa dabarka igu xidhay horta maan dagaalamo anigu maan istaafaco madaxweyne dulqaadkii baa iga dhammaaday talow maxaa ku xiga waa iska garanaysaa mar malaynaya